ابن مسعود مركو حذيفة وصوغله ويري بل وحي شوغو اي دردارا وعوري فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إياك والتلون في دين الله، إياك والتلون فإن دين الله واحد. وحول حذيفة ورهوي baadida dhabtii waxa weeye inaad garato oo soo dhawaysato oo jeclaysato waxaad shalay diidaysay bidcadii shalay kula fool xumayd maanta inay kula qurxoonaato baadida rasmiga waa taas waxaad shalay inkiraysay inaad maanta qurxiso baadida dhabtii waa taa xisbiyadaad shalay waa xaaraan lahayd maanta inaad taa waa iska jaayis waa ad-dalaala xaqu dalaala waxa baadida dhabtii ay tahay inaad inkirto waxaad shalay garanaysaa sunno iyo daliil iyo xaq iyo athar ahayd oo taa waxaan muxuu yahay war naga daaya dadka kala didinina waa xaqu dalaala shalay xaqaad aqoonsanayd maanta inaad garan weydo bidcadaad shalay inkiraysana maanta inaad garato soo dhawaysato waa ad-dalaalatu xaqu dalaala baadida dhabtii waa taa nacuudu billahi min alxawri bacda alkawr waxa uu yidhi warhooy iska ilaali isbadbedelka iyo midabaynta inaad kolba midab iyo muuqaal diinta dhexdeeda la soo baxdo way diinta ilaahay waa mid isma bedesho laakiin jirjiroolaha isbedelaya waa adiga diinta ma aha marka iyaaka wa talawun fa inna diin allahi waahid waxa la yaab leh maanta dakaatirada qaarkood inay bidcadii arrinkeeda fudaydiyaan ama waa iska yar makruuh ama waa laga fiican yahay ama waxyaabo bidca ay boodhka ka tumaan waa ayaan daro waana dib u noqosho oo daliilkiiyo sunnada in hore loogu socday ahay dacuu kulla qowlin cinda qowli muxammadin famaa aaminun fii diinihi ka mukhaatiri maanta imaam kasta hadduu yidhaahdo bidcada axkaamulkhamsa ku dareereysa hadalkii nebigaa ka mudan oo nebi moxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wa kullu bidcatin dalaala bidco walba waa baadi marka sheekha soo kala reebaa dee waa zallo ka dhacday iyo khalad ee meed ku raaci wa kullu bidcatin baad haysataa laakiin waxaa la yaab leh waktigii xernimada iyo suufiyada aan soo maray ayaa noogu dambeysay inaanu maqallo bidca axkaamulkhamsa ku dareerta berigaa dee waanu akhriyi jiray waxa weeyaan fiqiga mujaradka ee ifcal laa tafcal bilaa daliilka ana berigaasaa noogu dambeysay oo wayusanu wayukrahu wayaxrumu wayundabu dee in la wado unoo daliilka aan la sheegin oo mutuunta mujaradka la akriyo xarafka iyo khadka ku yaalla un iyadoon masalada loo raajicin masderkeeda marxaladaas ay noogu dambeysay ahlu sunnaha iyo salafiyiintana waxaa dhaqan u ahayd fiqigoodu inuu noqdo fiqi muqaarane maca daliil fiqi sunnada ku salaysan oo sheekhu albani waa idinka arkay yani muxadidka mujtahidka ah ee raximahullah aad aragteen xadiidka halkuu ka gaadhiyo sunnada dee haddana waa faqiih fiqigiisuna waa fiqhu sunna waa kale athamaru lmustataab fii fiqhi sunnati walkitaab marka waxa la yaab leh dee waktigaas marka safiinatu najaha iyo safiinatu salaadka iyo cumdaha iyo abu shujaaca iyo qaasimga iyo kutubtaasaanu soo dhiganay waktigaas laakiin dee daliil laysma weydiin jirin waa xarafkaa sheekuu meesha ku qoray un qaado waxaase ka dambeysay ilaahay sunnada markuuna fahamsiiyey sheekhu wixii uu ku qowlay waxa daliilka waafaqsanna dee inaanu qaadanno wixii daliilka ka baydhsanna aanu ka baydhno oo khadkan qorani uuna aanu hoggaan kuu noqon laakiin sow la yaab maaha maanta iyadoo sunnadu faaftay waa dacwa salafiya maa shaa allah ay waxa weeyaan timaarteedu bad iyo berriba ay ka muuqatay oo da'yarta lagu soo barbaariyey daliilkiiyo sunnada iyo aharka iyo raadka inay hayaan maanta in la ysku dayo in la tahwiiniyo la fudaydiyo arrimahaas la yidhaahdo waxba dhib ma leh sawcidumay o dhan taqsiimu lbidca dee culimaa ku tagtay oo maan laysba weydiinana ha ku tageena maxaa u daliila la fudaydiyo bidaca idaafiga ah waa masaa'ilka waxa weeyaan asalkooda mashruuciyada leh laakiin sifada ama qaabka ama hay-adda wax lagu soo daray xilliga lagu qaydayo ama cadadka lagu qaydayo ama kayfiyada yani shaygu hadduu yahay mashruucun biaslih mamnuucun biwasfih weeyaan bidcada idaafiga ah oo asalkiisu waa mashruuc laakiin waxbaa lagu daray waxaa bidco ka dhigaya idaafadaa wax lagu soo daray tii in la yidhaahdo waxa weeyaan arrinkeeda la fudaydiyo
bal waxa weeyaan bidca dhintayba la fadwoodo oo dee berigaasa noogu dambaysay nawaytu usalli farda salaati الظuhri 4 ragcaatin muqtadiyan allahu akbar iyo waxa weeyaan nawaytu sawma gadin waa laisku soonka waa laisku xidhi jiray habeenkii wadaadku haddaanu kuu sii xidhin soonka oonad ka daba odhan maalintaas soon kuma jiro dee haddii tii maanta lasoo ixyaa lasoo yaro nooleeyo oo la yidhaha atalafudu biniya laa ba's dhib ma leh waa raadkii oo laga baydhayo atalafudu biniyati bidca meeshaanuu nebigu ku dhawaaqin halkuu ku dhawaaqay waa lagu dhawaaqayaa oo waxa weeyi dee xajka oo kale nebigu waxa weeyaan talbiyada xidhashada xajka waa ku dhawaaqay waynu ku dhawaaqaynaa laakiin salaada xadiidu lmusii'i salaatahu dee wuxuu ku yidhi idaa qumta ila salaati fakabir allahu akbar taasaa salaada lagu xidhaa oo taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim waxaa lagu xidhaa allahu akbar waxaana lagaga salaama naqsadaa assalaamu calaykum waraxmat ullah dee haddaad maanta tidhaahda maya way kaalmaynaysaayo istishcaarkii waad ku xasuusanaysaayo quwat lxuduur waa intii aanu odhan jirun xaaladdii xerta yacni niyada caawinayse haddii lagu talafudo dhib ma leh haddii la yidhaahdo dee waxa weeyaan waa khalad taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuuz ninkaa salaaddiisa xumaynaya nebigu muxuu beri waayey sida gaayadu ay inay mashruucu noqoto oy daliil noqoto ay daruuri u tahay ayaa wasiilada iyo sababta loo raacayaana ay tahay inay sharciyada daliil ku leedahay haddii kale waxay noqonaysaa algaayatu tubarir lwasiila waxba ma leh mar haddii gaayada loo socdaa ay taa tahay asalkii un salaada wax alla wixii kale caawinaya loo sii maraya laa ba'sa laa gaayada iyo waxa loo marayaa labaduba waa inay mashruuc noqoto cibaadaduna waa tawqiifi amru lcibaada qiila waqaala iyo ma galo waxa weeyaan in wax layska ilqeeyo waxa weeyaan dee rabadaantiina waxbaan maqlayay aadaankii alfaada tacabudiga ahaa ila aadaanku waa adkaariya alfaad tacabudiya oon waxna lagu darayn waxna laga dhimayn dee suxuur in laguba dari karana waan maqlayay dee waa baashii markaa waxaan filayaa dabarkay soo goosatay bidcadii waayo nebigu salى الlahu عalayه wasalam xadiidkii bara ibnu caazib markuu adkaartii noomka berayey laba lafdi buu isku bedelay wa rasuulika aladii arsalta wuxuu yihi laa bal wa nabiyika aladii arsalta maya baraayo waxaad tidhaahdaa wa nabiyika aladii arsalta lafdiga waaridkii waa kaa hadda nebi iyo rasuul labadaba nebigu waa yahay salى الlahu عalayه wasalam maxaa ka macnaa lama odhan waxau yihi laa bal wa nabiyika aladii arsalta alfaadiyo adkaartu waa tacabudi waa shay cibaado oo laynagu addoonsado laa yuzaadu fiiha walaa yunqasu minha shay waxbana lagu dari maayo waxna laga dhimi maayo calaa kullin yacni waxyaabaha ducadii jamaaciga ahayd ee bacda salawaadka niyaa la xidhanaya suxuur baa la odhanaya taqsiimu lbidca waxyaabo fara badan ayaa saaxada socda laakiin waxaan idin leeyahay dacuu kula qowli cinda qowli muxamadi famaa aaminun fii diinihi ka mukhaatiri waxaan idin leeyahay ayuha alikhwaanu fi اllah waa in asalkii loo noqdo raadkii oo wasaawistan dambe laga digtoonaado ayna alaharu ya ayuha alahari aharkii me ayuha alahari qofka ahariga ah ee aharkiiyo xadiidka nebiga u nisbo sheeganaya weeyaan ahari raadkii rasuulku me maanta ma waxaa kula fududaatay wax walba cid baa tidhi waxaa qalad weyn ah in mas'alada laga eego hal qaala bihi axad cidi ma tidhi waa qalad waa in la yidhaahdo ciddii doontaa ha tidhaahdee hal lahaa daliil waayo hadday noqoto cidi ma tidhi wax walba cid baa tidhi shar oo dhan baa kugu kulmi markaa shar oo dhan ha xambaarane iska fudaydi waxaa kugu filan inta kitaabka iyo sunnada ku sugan oo allah waxau yihi subxaanah أولم يكفي منا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون miyaanay ku filaanin inaanu ku soo dejinnay korkaaga kitaabkaa lagu dul akhrinayo miyaanu kaafi ahayn oo aanan ku fillayn taas waxaa ugu sugan naxariis iyo waano cidda rumaynaysa waan toobaysa cabdiraxmaan naasir asacdi waxau yidhi aayaddaa markuu fasiraayey falaa kafa allaahu man lam yakfihi اlqur'aan walaa shafa allaahu man lam yashfihi اlfurqaan waman ihtadaa bihi waktafaa fainahu khayru lah wuxuu yidhi alla ma kaafiyo kifaayaba ma siiyo kaan qur-aanku kaafiyin
alla ma shaafiyo caafimaadba ma helo kaan furqaankaa xaqa iyo baadilka kala saaraya aanu shaafiyin ruuxa ku hanuunee ku kaaftoomana saasaa u khayr badan oo u wanaagsan waxyaabaha maanta soo baxay waxaa ka mid ah nimankaa xadadka cusub la yimid qaarkood oo ka mid ah ayaa waxaa layga soo sheegay inay yidhaahdeen iyada lafteeda waa inxiraafe kutubtii shaekhulislaam ee maxamed cabdulwahaab icaadatu nadar bay u baahantay waxaan idiin sheegayaa bidaayat linxiraafi wa nihaayatu min ayna bada'a wa ilaa ayna intaha wuxuu ka bilaabmay jawaasu tacadud اljamaacaat waxoogaa buxuusaa la qoro jamaacaad tiro badan in la samayn karo halkaasii aafadu ka bilaabantay maantana waxay maraysaa sheekhulislaam maxamed cabdulwahaab weliba ninka warkaa la iiga sheegay waa nin takhasuskiisu caqiidada oo dakaatiradaa ka mid ah waa aafo laga naxo inuu yidhaa maanta kutubtii sheekhulislaam maxamed cabdulwahaab waxbaa ku jira iyo takfiir oo hala baadho hala hubsado waa arrin khatar ah lana yaabi maayo oo qaala qablahum kabiiruhum kabiirkoodii baa hore u yidhi oo waa kii kabiiruhum uu yidhi maxaa inagu meermeeriyuun saddexdan hulaasiyadan sheekhulislaam ibnu taymiya sheekhulislaam ibnu lqayim waxa weeyaan sheekhulislaam maxamed cabdulwahaab ilaa mataa usuulu halaaa waxaanu leenahay ila alqabri waa su-aalihii qabrigo annaku waanu la dhimananaa oo man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuk waanu la godgelaynaa aduu haddaad usuulka dhaaftood ka sarrayso cilmulkalaamka iyo falsafada ku bedelo marka alkalaamu huwa alkalaam waana min manbacin waaxid hadalku hadalkaasuu ka hidahayaa kabiirkoodaa hore uu yidhi maxaa uun inagu meermeeriyey saddexdan iyo usuulka iyo kada wa kada miyaan wax kala jirin maanta wuxuu gaadhay ninkaasi qolooyinka kolley waxa weeyaan dee nimankani waa rag isku wada xidhan nin halkan inala jooga ma aha lakin waxaa laiga soo naqliyey inuu yidhi icaadatu nadar waa in lagu sameeyo kutubtii sheekhulislaam maxamed cabdilwahaab anta taxtaaju ilaa icaadati nadar adigu halkaagii hore u noqo weliba nin wanaag iyo sunno aan ku aqaanuha berigii hore lakinahu tagayar wuu isbedelay marka waxaan leeyahay ninkaas adaa icaadatu nadar u baahan maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu u nusreeyey oo u gargaaray xaq ullaahi cala alcabiid cumrigiisa iyo noloshiisa wuxuu ku qaatay nusrada tawxiidka marka xisbiyada xurmadii ka bilaabantay iyo xaqdaradii iyo bidcadii ma tawxiidkii iyo caqiidadii bay maraysa waa la og yahay waa bidaayat اlinxiraafi wa nihaayatu halkan waxaa ka bilaabdaa halkaasuu ku gebagaboodaayo ogaada khayr lagama dheefo